tanna waa qayb ahaan sheekada actorka iyo DJ-ga England u dhashay asal ahaana Afrika ka soo jeeda ee Idris Elba kan loo yaqaano DJ Big Trees oo ka mid ah jilayaasha hadda ugu magaca weyn England iyo Hollywood-ka Mareykankaba. Idris waxa uu ku dhashay dalka Ingiriiska ha yeeshee hooyadii waxa ay ka soo jeedaa Ghana halka aabihiisna ka yimi Sierra Leone. waagiisu waxa uu ku bilowday DJ-nimo oo waxa uu ilaa dhowr iyo 10 jirkiisii ka mid ahaa koox muusig ha yeeshee isla London ayuu kaga biiray masraxa jilidda filimada halkan ayayna ka bilaabatay cunsuriyadda ka curatay kaalintiisa jilidda filimada ee England taasoo ilaa maanta oo loo badinayo inuu noqdo James Bond ka xiga daba socota. bilowgii Idris markii ay shaac baxday hibadiisa jiliddu waxa uu arkay inay xadidan tahay doorka qof madoobi ku lahaan karo masraxa jilidda filimada Ingiriiska taasoo ku khasabtay inuu u guuro magaalada New York ee Mareykanka halka oo uu ka helay kaalin u qalantay bandhigidda hibadiisa jilaanimo. inta badan waxa uu ku caanbaxay jilidda doorka drug dealerska maadaama filimadii ugu horeeyay ee uu magaca ku helay uu karakterkaas ku jilay gaar ahaan filimka la yiraahdo The Wire ee HBO. inta dabadeed Idris waxa uu noqday mid ka mid ah jilayada ugu caansan loogu jecel yahay karakterkooda uguna dhaqaalaha badan xitaa mar ayaa loogu codeeyay ninka ugu quruxda badan dunideenna ee nool. Success is the man alive tan laf ahaanteeda ayuu rikoor dhinaca cunsuriyadda ah ku jabiyay oo markii jariiradda People Magazine 2018 darajadan siisay waxa uu noqday ninkii saddexaad ee madow ee shabakadu boggeeda hore ku daabacdo iyadoo darajadaas loogu codeeyay waxaana ka horeeyay Denzel Washington oo 1996 noqday iyo Dwayne Johnson oo 2016 ahaa. aynu ku noqono darajooyinka uu dadaalkiisa kaga helay dalkiisa England ee uu cunsuriyadda bilowgii uga tagay 2016 waxa boqortooyada Ingiriisku Elba siisay darajada la yiraahdo OBE Officer of the Most Excellent Order of the British Empire taasoo bilad ahaan ah midda labaad ee ugu sarreysa ee boqortooyada Ingiriisku bixiso. tan marka laga yimaado waxa haatan Idris loo qalqaalinayaa inuu noqdo James Bond ka xiga oo uu door ku yeesho filimkan aan hortiis madowga actorka koowaad ka noqon. tan laf ahaanteeda takoor badan ayuu goor horeba kala kulmay balse maadaama jilaaga Ingiriiska ah ee Daniel Craig dhamaadkii 2021 sameeyay filimkiisii ugu dambeeyay ee karakterka Bond ee uu isagu jilo waxa dad badan u arkaan in Idris noqon karo actorka kaliya ah ee dalkan ka soo jeeda ee karakterkaas ku soo bixi kara. It is not a goal for my career. I don't think that, playing Bond will satisfy some of my personal goals. ma aha hadafka ama goolka waayahayga isma lihi jilida Bond waxay noqon doontaa mid ay ku najaxaan hadafyadayda shakhsi ahaaneed waxaase tan ku najaxaya rabitaanka dadka. ma rabo been inaan sheego meel kasta oo adduunka ka mid ah ee aan tago waxay leeyihiin Bond sidaa daraadeed waxaan isiri waa wax aniga iga weyn rabitaankaasi. micnuhu ma aha ma samayn doonaa ma jili doonaa mase micnuhu waa waxa dadku doonayaan mararka qaar. ma ihi ninkaas leh rabitaankaas balse runtu waxay tahay in dad badni sawiran karaan Idris oo Bond jilaya. xogaha qaar ayaa wariyay inuu diiday ninkani jilida James Bond ka xiga maadaama haddii doorkiisu gadmi waayo ay noqon doonto cunsuriyad hor leh oo saameyn doonta waayihiisa jiliinka. maruu ka hadlayay tan wuxuu yiri waxa hadalhayntu noqotay midabka maqaarkayga haddaan jilo Bond oo uu shaqeeyo iyo haddii uu shaqeyn waayo labadaba waxay noqon doontaa waxun loo tiriyo sida aan u ekahay. sidaas daraadeed waa boos aan qumanayn inaan naftayda geliyo. qisada Idris marka laga yimaado dadaalka shakhsi ahaaneed ee laga baran karo mar kale waxay tusaysaa heerka cunsuriyadda masraxa filimada galbeedka oo kuwa magaca leh laf ahaantoodu ku dhibtoonayaan.